waliba geeka magaalada baydhabo xarunta gobolka Baydhabo wafdu ku socda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo soo gaamiyo Wasiiru Dowlaha Xafiiska Raisulwasaraada dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Xamuud iyo mas'uuliyiin kale walibana garoonka diyaaradda deegaanka ee Shaatiga International Airport ee magaalada Baydhabo ka dhawaayay wasiirka warfaafinta dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Ugaas Xasan isasoo kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaro dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya walibana ujeedka safarisho hayay daadiyowka hanaanka dawladnimada iyo deersiyowka tuwa qaranka dawladda cusub ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo ku qayb qaadowga arrimo bulshada ee maamul goboleedyada iyo adkeeyowka golaha wasiirada cusub ee dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya walibana koreen soo dhabeynta ku hadalay wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Ugaas Xasan مع وزير دولها وزارة حفيظك رئيسالوزراها جمهورية فدرالك الصوماليات بروفيسور باديو iyo بروفيسور يحيى oo ka socda xafiiska Prime Ministerka وفود kale la socota soo dhawaada magaalada Baydhabo Janaay ku soo dhawaada wasiirka saaxiibkay koligeyga wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo oo aad u kulul oo bishii Maars lagu jiro sida loo yahay bishaan waa bisha aad Soomaaliya oo dhan marka si loo eego kuleelkeedu uu aad u badan yahay laakiin Baydhabo Janaay oo isbedel ka dhacay dawladeed oo si qurux badan Soomaaliya dawladnimadeedu waa maalinba meel ay soo joogtaa laakiin waxuna iska jirjireen ugu dambeyntiina reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay garteen in dawladnimadu ay muhiim tahay waxna isku qabsan karaan isna tanaasuli karaan Professor Badiyo iyo Professor Yahya iyo waliba yoona kumid tahayna wafdiga ka deeri magaalada Baydhabo waliba ni kurbeena ujeedka kooyowsho magaalada Baydhabo alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed aad baan uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta sharafta leh wafdiga xafiiska wasaaraha uu hogaaminayay Wasiiru Dowlaha Xafiiska Raisulwasaraada u yimid magaalada madaxda ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Baydhabo in ay isbedelka dawladeed ka hana qaaday Koonfur Galbeed ay qaybta uga aadan dawladda federaalka ay ka qaadato oo dabcan mas'uuliyad dastuuriga ah kobcinta hanaanka dawliga ah iyo fidinta gaarsiinta ee federaaleynta inaan qayb ka noqono ayaan u nimid taasna wasiir dowlaha ayaa faahfaahin doono aadan ugu faraxsanaynaa Baydhabo aan nimaadno Baydhabo waxay ugu dambeysay aniga sanad ka hor ayadoo intaan ka qaboobo xagaa ka daayo sidaas oo kale tan de waa xilliyadii lagu jira aadan ugu faraxsanaynaa amni tahay aadan ugu faraxsanahay inaan hanaanka geedi socodka federaaleynta dalka aan qayb ka nahay كاتو دمان واحد سلامية وحان سلامية وزيرة دليرة سو دوي محو أها وزيرك ورفافينتا iyo wasiirka dhalinyarada waxay tusaalakata hay dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo dhalinyaro noqonays ay marxaati ka tahay salaan dadka dhamaan wada salaaminaa salaanka bacdina waxa waaye aad ugu faraxsanahay 3 sano ka hor halka la dhigay ugu dambeysay inaan maanta marka marxabaad ku soo noqono oo ka qayb noqdo wafdiga oo hogaaminayo Wasiiru Dowlaha Xafiiska Raisulwasaraada runta aad iyo aad ugu farxay markii la ii yeeray Baydhabo tagaysaa la yiri farxad weyn ayay runta ii ahayd marka aan waa in salaamayaa inta hadalada inta kale waxa iska leh Wasiiru Dowlaha ayaan ku wareejinaynaa maanta gabagabadii waliba goobta ku hadalay Wasiiru Dowlaha Xafiiska Raisulwasaraada waliba uu sheegay inta waxyaabahan kuwiin ayaan ku hayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayeta xoojiyowka golaha wasiirada cusub ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo deersiyowka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya tuwa qaranka ee dawlad goboleedyada cusub ee la deersiyaya warfaafinta iyo wasiirka dhalinyarada iyo sportiga ee Koonfur Galbeed iyo dhammaan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ugu weyn ee madaxweynaha Cabdullaahi Xasan Maxamed laftigareen kuliin waa idin salaanay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in aan nimid xafiiska ra'iisul wasaaraha inuu yimid magaalada madaxda ku meel gaarka ee dawladda Koonfur Galbeed oo ah meeshii aniga ay xudunteeda gudugneed inaan maanta aan soo qaadnay dawladnimadii beelo dhowr jeer waa nimid laakiin hadda sababta aan u nimid waxa ugu weyn waxa weeye inaan soo daadihino dawladnimada in aan keenno waxyaalihii hadda ay xafiiska ra'iisul wasaaraha ay aad ugu soo shaqeeyeen 2 sano ugu soo dambeysay oo ah tubihii qaranka in tubahaas loo daadijiyo maamul goboleedyada iyo dawlad goboleedyada qaybta ka ah dawladda federaalka in Soomaaliya ay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ay hal ajenda ka noqdaan horumarinta iyo baahinta dawladnimada iyo horumarinta arrimaha bulshada marka aad ugu faraxsanahay wixii faahfaahin kale waxaan siin doonaa mar kale
laakiin hadda waxaan rabnaa inaan labada cishoon meeshaan joogno inaan la kulno golaha wasiirada ee cusub iyo madaxweynahaba inaan la fariisano aragno hanaanka ay u wadaan iyo wixii anaga aan ka geysan karno adkeynta golaha wasiirada iyo daadiinta tubaha sidaan ugu soo sheegnay marka kulli faahfaahinta ma jiri doontaa haddana aad aan ugu faraxsanahay magaalada joogno waa mahadsantihiin wasalaam Cabdullaahi Maxamuud Muuse Cabdullaahi Cafaani telefishinka iyo raadiyaha dowladda Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.